asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalacan miidiya. daawadayaal meel kasoo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. dayaal kusoo dhawaada daalacan media oo aan idinkugu soo bandhigi doono warar, warbixino, dhacdooyin, sheekooyin iyo wacdaraha kale ee la yaabka caalamka. Fadlan daawade saar subscribe, share iyo like ka mid noqo macaamiisha daalacan media. mahadsanidin. daawadayaal mar kale kulan wanaagsan. xubinteen waxaynu ku soo qaadanaynaa maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay bixinta ruqsadaha shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaan forex market trading. gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu soo saaray wareegto lagu mamnuucay bixinta ruqsadaha shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee online-ka ee loo yaqaan forex market trading. wareegtadaasi ka soo baxday duq magaalada Muqdisho waxaa kaloo lagu xusay in ruqsadii hore loo bixiyay iyana dib u eegis lagu eegi doono amaba go'aan laga gaari doono. wareegtadaasi waxa ay u qorneed sida tan: ujeedo joojin ruqsadsiinta ama diiwaangelinta shirkadaha forex market trading. tixraaca warqadda sumadeedu tahay gov.10-10-71-20 ee soo baxday bishan Febraayo 19 kana soo baxay xafiiska gudoomiyaha Bangiga Dhexe Soomaaliya kuna saabsanaa ruqsad siinta shirkado sheegtay inay ka ganacsadaan sarifka lacagaha qalaad ee loo yaqaan forex market trading company. haddaba iyadoo laga ambaqaaday warqadda tixraaca sare ku xusan agaasimaha waaxda khidmada iyo adeegyada gobolka Banaadir ayaa warqadda sida tooska ugu socoto waxaa lagu wargelinayaa in la joojiyo laga bilaabay maanta oo ay bisha tahay 20 Febraayo ruqsadsiinta ama diiwaangelinta shirkadaha forex market trading company. wareegtada waxaa kaloo lagu xusay in la doonayo in waaxda khidmada ee dowladda hoose inay soo gudbiso liiska shirkadaha forex-ka ee maamulka gobolka Banaadir hore u diiwaangeliyay si go'aan looga gaaro. wareegtada ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa ugu dambeyntii lagu sheegay mas'uuliyiinta warqadda ogeysiiska ay ku socoto waxaa iyagana laga codsaday inay sidaa ula socdaan. waxaa ku saxan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Filish.